laba qeyb hore ugu soo shaqeynay qeybta koowaad oo ahayd min 25 su'aal oo konton ka dhibco ahayd iyo part 2 oo ahay March oo isku aadin column A iyo column B. Today we are going to solve part 3. maanta waxaan xalin doonaa qeybta saddexaad oo ah structured questions su'aalaha tooska ah. waxaa lagu sixi doonaa ama waxaa lagu saxaya 40 dhibcood isla socod wanaagsan. su-aasha kuwada ku hormari doonaa question 1 waxaa lagu dhahay marka oscillator motion ay quseysaa socodka walahadeedka. su-aasha koowaad marka waxaa lagu dhahay right waxaad qortaa the formula waa maxay qaacidada Hooke's law marka qaacidadeedu waxa waaye force waxaa lagu helaa minus ama negative spring constant oo lagu dhuftay displacement. qaacidadaas ayaa waxaa lagu helaa ama waa qaacidada Hooke's law ama formula of Hooke's law. su-aasha labaad ee chapterka oscillator motion ee imtixaanka waxay u dhaceysay how much waa imisa mass cufka should be ay noqon karto at the end dhamaadka of spring moolo haddii spring constantiga ama doorsoomaha moolada ay tahay 100 newton per meter in order to have loo helo marka periodical oo 2/6 ah. meel banaan aan tagi doonaa haddana waan soo xalin doonaa. waayahay waxaa nala siiyey waxaan haysanaa spring constant oo ah 100 newton per meter ayaan haysanaa. waayahay halkan ayaan ku xalin doonaa. waxaan haysanaa spring constant oo ah 100 newton, waxaan haysanaa period kalka oo ah 2 second, waxaan laga rabaa mass inaan soo helno. marka masska waxaa lagu helaa qaacidada masska lagu helo waxay tahay masska waxaan ku heleynaa spring constant oo lagu dhuftay t square ama periodka la square gareeyay ayaa waxaan u qaybin doonaa 4 by square. balse qaacidadan halkay ka timid qaacidadan ayaan soo raadin doonaa insha Allah. qaacidada waxay ka imaaday periodka ayaa waxaa lagu helaa 2 by radical m divided by k. qaacidadan ayay laga soo saaray m toatana m halkaas ayaa ka soo saarayna. maxaa leenahay marka inta square saar intana square garay halkaan square korays marka t square marka waxaa lagu helaa 2 dil square garay waa 4 by dil square garay waa by square ayaan leenahay. radicalka marka m square ku baxa radicalka waxay noqonaysaa m kaligeed iyo k kaligeed. waxaan sameyn doonaa cross multiplication dan ugu dambeyn m marka waxay noo soo bixi doonto waxay noo soo bixi doonta k ayaa waxaan ku dhufan doonaa t square waxaan u qaybin doonaa 4 by square. qaacidadaas ayaan waxaan ku isticmaali doonaa waxaan ku heli doonaa masska. waxaan leenahay marka waxaan leenahay masska waxaan ku heleynaa spring constant oo lagu dhuftay t square period waxaan u qaybin doonaa 4 by square is equal spring constant keeda waa 100 waxaan ku dhufanaynaa 2 oo la square gareeyay oo periodka ah waxaan u qaybin doonaa 4 by waxaan haysanaa 3.14 ayadana waxaan saari doonaa square 100 waxaan ku dhufan doonaa 4 waxaan u qaybin doonaa 4 waxaan ku dhufanaynaa 3.14 dil square gareeyo. ugu dambeyn waxay noo soo bixi doonta masska 10 kilogram. waxay noo soo bixi doonto 10 oo ah kilogram. marka masska wuxuu noqonayaa masska waxay noo soo bixi doonto 10 oo ah kilogram ayaa inoo soo bixi doonto. su-aasha saddexaad waa question 2 waa reflection of light wuxuu quseysaa chapterka qaloocan kireyska. state lagu marka sheeg the types of reflection waa maxay noocyada noqodka of light ee ilayska. answer jawaabta waxay noqonaysaa regular reflection iyo waxaa loo qeybiyaa irregular reflection. labadaas ayaa loo qeybiyaa types of reflectionka waa irregular reflection iyo regular reflection. regular waxaa kaloo dhihi karnaa specular reflection, irregular waxaa kaloo dhihi karnaa diffuse reflection. su-aasha labaad ee chapterka reflection of light su-aasha labaad ee question 2 qeybta labaad waxay noqonaysaa distinguish waxaad kala saartaa lagu dhahay marka between real image humaag dhab ah and virtual image iyo humaag beeneed. marka real image waxaan ku kala saari karnaa iyo virtual image dhowr ayaan ku kala saari karnaa. qeexitaanka waa isticmaali kartaa oo ah book uu qoraya. haddii kale waxaa isticmaali kartaa real image waxaan kusoo gaabsan karnaa real image waxaan dhihi karnaa can be format wuxuu ku sameysmaa
on the screen shaashada dusheeda. Halka virtual image aan dhihi karno can be formed wuxuu ku sameysmaa behind the screen shaashada gadaasheeda ama sidaas ayaan dhihi karnaa. ama waxaan kaloo dhihi karnaa real image waxaan sheegi karnaa astaamihii realka ah inverted ka upside down ka waxyaabaasan ayaan tixi karnaa. halka virtual image na aan dhihi karna erect upright iyo dhammaan astaamihii uu lahaa lateral invert waxyaabaasan ayaan ku qeexi karnaa. marka guud ahaan real image waxaan dhihi karnaa can be formed on the screen, halka virtual image na uu yahay can be formed behind the screen ama cannot be formed on the screen ayaan leenahay. su-aasha saddexaad, Faarax ayaa standard wuxuu taagan the distance masaafo oo 5 mitir ah ayuu wuxuu u jiraa muraayad nooc loo yaqaan convex mirror oo focal length dherer kulmis uu yahay 10 mitir. calculate waxaan laga rabaa marka position-ka barta uu ku sameysmay humaaga iyo magnification kiisa. kadibna waxaan xalin doonaa state oo sheegi doonaa its nature nooca uu yahay. waxaan haysanaa marka 5 mitir oo ah object distance iyo focal length oo 10 mitir. halkaan imaan doonaa waxaan haysanaa image distance oo 5 mitir iyo waxaan haysanaa focal length oo ah 10 mitir. waxaan soo xalin doonaa marka laga rabaa image distance. image distance waxaa lagu helaa object distance oo lagu dhiftay focal length ayaa waxaan u qaybin doonaa isla object distance-ga oo laga jaray focal length-ka. qaacidadan ayaan isticmaali doonaa. maxaan leenahay marka object distance waa 5 mitir and image focal length laakiin wuxuu noqonayaa negative maadaama ay tahay convex mirror. waxaan leenahay marka negative 10 mitir bracket bilan fuaad waxaan leenahay loo qeybshay object distance-ga waa isla 5 mitir laga jaray focal length wuxuu wataa negative 10 ayaan leenahay. marka 5 lagu dhifto 10 waxaa noo soo bixi doonto negative 50 oo hoos dhigay minus kan uu ku dhaca wuxuu noqonayaa plus 5 marka waxaa ku darsamaya 10 wuxuu noqonayaa 15. marka 5 ayaa waxaan qaybin conton minus negative 50 ayaa waxaan qaybin doonaa 15 5 iyo 10 waxay noo soo bixi doonto negative 3.33. marka intaan waa object distance. aan dhaho image distance-ga humaaga wuxuu ku sameysmaa meel u jirto negative 3.33. waxaan kaloo soo saari doonaa magnification-ka. magnification marka waxaa lagu helaa isagana image distance oo loo qeybshay object distance labada isku qaybin doonaa. image distance waxaa noo soo baxay negative 3.33 waxaan qaybin doonaa object distance oo ahay marka hore waxaan la siiyay 5 labada marka isku qaybin waxaa noo soo bixi doonto negative 0.666 ayaan leenahay. magnification-kana hal beeg ma laha. waxaan leenahay marka waxay noo soo baxday image distance-ga waxaa inoo soo baxay negative 3.33 oo mitir ah, halka magnification-kana inoo soo baxay negative 0.666 ayaa inoo soo baxay. haye nature-ka muxuu noqonayaa marka? nature-ka wuxuu noqonayaa haddii mar negative uu soo baxo ama convex mirror ay tahay nature-ka wuxuu noqonayaa virtual image. waxaa leenahay waa erect, sidoo kalena waxaan leenahay upright, sidoo kale waxaan kaloo ku dari karnaa sidoo kale waxaan dhihi karnaa diminished maadaama negative uu soo baxay image-ka wuxuu noqday mid diminished. dhammaantooda marka waxaa waaya nature-ka uu yeelanayo image-ka sameysmay. su-aasha xigta question 3 waxay noqonaysaa maadada waa dispersion of light. firdhiska ilayska ayuu noqonayaa. use marka isticmaal the following prism below. class prism-ka hoos isticmaal and then kadib complete ku dhamaystir the missing colors midabada maqan. kan labaad wuxuu noqonayaa orange, kan saddexaad waa yellow waxaa ku xig green waxaa ku xig blue waxaa ku xig indigo waxaa u dambeeya violet. si aan ku naqaynay colorska wuxuu ku koobnaa royal beef ayuu ku koobnaa. ereygan ayaa lagu soo gagaabiyaa marka laga hadlayo midabada. waa red ka ugu horeeyo, waxaa ku xiga orange, waxaa ku xiga yellow, waxaa ku xiga green, waxaa ku xiga blue, waxaa ku xiga indigo, waxaa u dambeeyo violet. marka waxaa noqonaa red waa orange, yellow, green, blue, indigo iyo violet oo loo soo gaabay royal beef. intaas ayaan ku buuxinaynaa.
waxaan gali doonaa marka su-aasha labaad ee dispersionka wuxuu noqonayaa use isticmaal the information in the table below lagu siiyey tableka lagu siiyey isticmaal to fill saad ugu buuxiyay the gaps meelaha banaan waayahay it is ko marka waxaa lagu siiyey it is used maxaa loo isticmaalaa photosynthesis waxaa loo isticmaalaa waa feasible light kan wuxuu noqonayaa b waxay noqonaysaa it is used maxaa loo isticmaalaa TV remote control remote maxaa loo isticmaalaa TV-yada waxaa lagu isticmaalaa infrared wuxuu noqonayaa b c waxaa galaya it locate maxaa loo isticmaalaa fracture bone ama bone fracture jabniinka lafaha waxaa loo isticmaalaa x-ray wuxuu noqonayaa c it is used in communication maxaa loo isticmaalaa waxyaabaha xiriirka ama communication waxaa loo isticmaalaa radio wave tan u dambeys oo it is used in treatment maxaa loo isticmaalaa daaweynta cancer cells unugyada sababa kansarka waxaa loo isticmaalaa gamma waxay noqonaysaa marka d afartaas ku tan koowaad waxaa galayso feasible light tan labaad waa infrared tan saddexaad waxay noqonaysaa x-ray tan afraad waa radio wave tan shanaadna waa gamma rays su-aasha saddexaad aan aragna marka distinguish waxaa kala saartaa monochromatic light iyo polychromatic aan kala saaraynaa maxaa leeyahay monochromatic light waxaa la is the light waa ilayska of single color haduu ka samaysan yahay hal midab ama single wavelength ayaa waxaa loo yaqaanaa monochromatic waxaa ka mid tusaale red oo kale ama green oo kale ama blue hal color haduu yahay waxaa la monochromatic halka polychromatic light aan leenahay is the light waa ilayska which is made up of two or more colors haduu ka samaysan hal iyo wax ka badan laba iyo wax ka badan colorne waxaa loo yaqaanaa polychromatic sidaad white light oo kale saa white light ka ku naqaano wuxuu ka kooban yahay 7 color su-aasha qaybta u dambeyso imtixaanka ayaan gudagalaynaa question 4 waxaan leenahay sound wave determine waxaa lagu marka waxaa soo saartaa speed of sound speedkan laga rabo marka speedka ayaa naga rabo speedka waxaa lagu helaa saan naqaana haddii temperature uu yahay waxaan haysanaa temperature oo ah 40 degree celsius marka speedka waxaa lagu helaa 330 oo lagu daray 0.6 waxaan ku dhufanaynaa temperature-ka maxaa leenahay marka 330 oo lagu daray 0.6 ayaa waxaan ku dhufanaynaa temperature-ka 330 aan soo qaadanaynaa plus 0.6 temperature-ka waxaan la siiyey 40 marka 0.6 duluurta 40 waxaa noo soo baxayso 24 330 waxaan ku daray 24 ugu dambeyn waxaa noo soo bixi doon 350 oo meter per second speedka wuxuu noqonayaa 354 meter per second su-aasha labaad what is the relation waa ma xiriirka between u dhaxeeya frequency of the sound wave and its pitch waxaan rabnaa in la kala saaro frequency iyo pitch waa maxay marka xiriirka dhaxeeya pitchka waxaa leenahay was the change oo isbedel ku yimaada frequency-ga pitchkan wuxuu ku xiran yahay rakaadka ama frequency-ga diver frequency kullama frequency-ga uu bato ama ziyaado diver the pitchkan waa uu ziyaadaa marka pitchka iyo frequency xiriirka dhaxeeya waxaa loo yaqaanaa ama wuxuu yahay pitchka wuxuu ku xiran yahay frequency-ha pitchkana waxaa lagu qeexaa waa isbedel ku yimaada frequency-ga hadduu pitchka bato frequency-ga badanaa ama haddii frequency-ga bato pitchka ayaa badanaa intaas ayaan kusoo gabagabeyn doonaa insha Allah.